waxay u baahan tahay waxay laga maqan ma jiro Soomaaliya baahideeda iyo waxqabadkeeda ugu badan maanta wuxuu yahay hoggaanka arqiyada raashida waxaa hoggaanku haddii Soomaalida waddo sax ah hoggaan fiican isku duubnida ka shaqeeya cadaalad sameeya la helo waxaan isleeyahay shacabku maanta uu bislaaday way soo kartay dowlad la'aantu waxa ay tahay waan idinka mahadcelinayaa shaqadaad qabateen culayska idin soo wajahay sida wax badan iyo dana badan waddanka looga leeyahay faragelin badan u iman karayso haddana waxaan rabnaa in la ilaaliyo midnimada iyo isku duubnida shacabka Soomaaliyeed dalka iyo dadka loo horseedo siday uga bixi lahaayeen culayska iyo dhibaatada haysta iyo shabaab iyo dhibka ay ku hayaan mudane ra'iisul wasaare shacabka Soomaaliyeed waxaa baaba'aya oo sii dhammaanaya jiilkii ku soo tarbiyoobay ku soo ababay ku soo koray dowladnimo Soomaaliya maanta dadka magaaladan markaan dhex maraynay maalinood waxaad aad u xusuuso u lahayd dhalinyaro ay u badan yihiin dhalinyaradaasi ama qaxootinimay ku dhasheen iyo dagaalka iyadoo uu jiro ama xilligii dowladdu burburtay iyagoo markaas dhashay oo sanad iyo laba jira yaa dowladdii Soomaaliya markaa hiliyaarkeedii u dhacay taa macnaheedu waxaa weeye waxaa lumaysa waddaniyadii shalay jirtay dowladnimadii shalay jirtay aqoontii dadku ay lahaayeen kuwa kale taxayna dibadda u baxayna nin waliba wuxuu ku khaldamayaa jinsiyadda uu leeyahay ninku baasaboorka kale uu wato yaa wuxuu odhanayaa baasaboor waxaan wataa anuu reer dowlad hublaan ahayo jinsiyad kalu sheeganaya sheegashada uu jinsiyadda kale sheeganayaay nin laba wadan leh oo laba kaarle uu iska noqonayaayo sheegashadaasi waa mid marka dambe laga yaabo inaynan u noqonin sida ugu fiican ee qofka Soomaaliga ugu fikiri karaya sidaa daraaddeed waxaan odhan lahaa inta weli dadkii hore wax ka nool yihiin waa aga dogaas Cumar Xiire uu lahaa inna qarshaseen hadda ula noolaanayaa ciidamada hadda jira sababtoo sida jirtadii uu shalay yaqaanay ee libaaxii Afrika ahayd iyo waxay ku dhaqmayeen iyo meeshay marayeen iyo maanta waxa yaala waa farqi aad u dhexeeya sidaa daraaddeed waxaa laydinka rabaa oo looga baahan yahay mas-uuliyiinta Soomaalida ku jirto inaan baldankan isku dayno inaan u horseedno oo la riixo oo horey loo wado oo la isku dayo dadku kuwa bannaanka laga jiran in loo yimaadaan kuwa gudaha joogana inay dowladnimada dareemaan dadku cadaalad ay helaan waxbarasho la helo amni la helo shabaab oo ah culayska maanta inoogu badan waan ka maarmi karnaa amisom iyo quwado shisheeye laakiin innaga isxilqaankii baa inaga maqan inaan isku tashanno lafaheenna aaminno wiilasheenna aaminno tababarkay u baahan yihiin aan siino kharashka wax kale aan ku bixinayno aan ku bixinno ee kuwa boorshooyinka wata la siinayo taasaa waxay aada uga fiican tahay inaan siyaalo kale iyo ciidan kale oo shisheeyaa tala saarano middaasaa mar walba inooga fiican sidaa daraaddeed maanta fulinimana laynooguma sheegi jirin kuwa inala dagaalamayana waa Soomaaliya in yaroo kaloo lagu daray laakiin waxaad moodaa inaan innagu u baahannahay isku tashi dhaba inaan samayno oo Soomaalinimada waxaan marar badan ka hadlay amisom iyo kuwa dhaqaalaha ku bixiya iyo Soomaalida intaba inay dhibaatada ugu weynay jirta ay tahay la xisaabtan la'aan weliba aanu eedda u soo jeedinay dowladda federaalka oo ay ku yartahay xisaabtanka ciidanka amisom kuwa dhaqaalaha siiya maxay qabtaan shaqada laga sugaya away xagee loo socdaa maa la socdo in intaa lagu xisaabto iyagu waxayna weydiinayaan ay tahay away ciidankii Soomaaliyeed raaci lahaa inaan iyagana u hurno wiilasha ciidanka ee Soomaalida ee ciidanka waddanka ka dagaalamaya dhaqaalaha ay u baahan yihiin iyo baahidooda lojiskada intaan iyagana u diyaarino ay ku talagalaan Soomaalinimo iyo inay u dagaalo waxaan umale cid ka geysanay inayna jirin taa aan ka shaqayno arrintaasi mas-uuliyadda dowladda ay leedahay ha qaadato waxaa jiray madmadow
أنت بدل الشيء هذا وحبرش على اللي أمني على على واحد بدل الدولة فضل كي دولة دولة ترسانية وحنو مرينا يا سعف سجود وحكر عين جرول ومعنا جمهورية دول وهل سعفيه وأنت شان وقعان جيل كذا كل والله ما يله هوس عنهم ما يله وهذا الصحابة يعني تيجي قريب كتاي كعليه هوس الله ما يله يكمل هاي سفر كرجل وزارة وكل من هالكذي وزير يقوم يمسنا ولو حدين شيء أنت لا صعطة أنت بدل أنا قاعد البلد الوزارة ده أنا حنا نقولش أنا حنا نقولش هاي نادي سيجي عنا وهذا كذي وضعي هذا مو فرحنا لكن إن أبورو كرسولي ذا يا واحد ذكر المدني وشيء مهم وعنا نجينا يا أنا أنسلك على وهي ذاتك واحد بدل وحشويتين ترى مدحين محيدين شيء دونا وحيا اللي بانك كتب لنا مرة ماتت هذا الصدام وحولي والبوحة هل واحد يسمى قلت لو كان عارف كذا كذا ضيع وحين نغرسها المدحين المجلس لو توسع ولا كذا كان يسرق وحي شيء سنة سوق على نادي لهنا لكن مبدئيا وفتي يمد رئيس الوزراء وأنطلق على قمر كستا وعبشة كجتة أبو علي سوى الدين مدول بسيدي سان سلام اللي